Habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka caawiya caalamka waxaan ahay Cabdiraxmaan Bidhaan qodobada wararka waxa ugu waaweyn laba masaajid oo magaalada Christchurch ee New Zealand ku yaala ayaa ugu yaraan 49 qof lagu dilay kadib markii rasaas lagu furay warbixin dheeraad ah ayaan idinka haynaa dilka ka dhacay New Zealand ee dadka Soomaaliyeedna ku dhinteen wararka kalena waxa kamid ah waxaanu eegaynaa daryeelka jidhka iyo qurxintiisa habay kumanaan sanadood isticmaalayeen dadka reer Barma عاونا وعاودة تكنولوجيا دا وحانو دين هاي نعنتدي إيه تكنولوجيا دي أو إسلا شان قاضي كلا سعو BBC News Somali تلفزيون كا راديوها أونلاين كا إيه بوجا بالشدة هل كانوا لندن عاو إيه عالم aynu ku bilowno weerarada ka dhacay dalka New Zealand weerar toogasho ah ayaa halkaasi ka dhacay oo weeraan 49 qof ay ku dhinteen dad ka badan 20 qof ayaa iyaguna dhaawacmay oo dhaawacyo culus ah oo ay weerarkaasi ka soo gaadheen labada masaajid ayaa halkaasi lagu weeraray booliska ayaa ka hadlay sida wuxuu dhaceen So far one person ilaa iyo hadda nin dhowr iyo 20 jir ah ayaa loo haystaa dembi dil waxaana la soo taagi doonaa maxkamad ku taala Christchurch subaxnimada berri waxaa kale oo iyagana la xidhay laba nin oo kale iyo gabadh boolisku waxay sheegeen in mid ka mid ah raggaasi la qabtay aanu ku lug lahayn ee weerarkaasi muuqaaladan waa kuwii maanta sida la filayay halkaasi waxaad ka arkaysaan inay joogan boolis badan oo gaadiidka iyo gaadiidka degdeg ah waxa la sheegay in ninka uu dhacdadan si toos ah u duubayay markii uu dadka tooganayay oo uu la wadaagay goobaha ay bulshadu joogto waxaana la sheegayaa in masaajidka Al-Nuur si aan kala soc ahayn dadka u tooganayay dumar iyo cariirba haddii aynu eegno waxaynu arkaynaa inay subaxnimadii maanta ayaa hadaba ra'iisul wasaaraha New Zealand Jacinda Ardern ay la hadashay dadweynaha dalkaasi New Zealand oo ay ka hadashay sida ay wuxu dhaceen It is clear that this can now only be described as a terrorist. waxa cad in tani ay tahay fal argagixisnimo hadda intaynu ognahay waa mid la qorsheeyay Planned. These are people who I would describe dadkani waxay ahaayeen qaar leh fikir xag jir ah oo New Zealand iyo adduunkaba aan lug ku lahayn in New Zealand and in fact have no place in the world. wayna soo doonteen laakiin waxba lama wadaagno We utterly reject and condemn you. halkan aad arkaysaan waa magaalada Christchurch oo ah meesha uu weerarku ka dhacay nin hubaysan ayaa isagoo ninkaasi hubaysnay dadka laga wuxuu xidhnaa dharka militariga iyadoo uu rasaas badan dadka ku furay dadka halkaasi joogay waxay gaadhayeen ilaa 300 qof oo ku tukanaya masaajidkaasi la yiraahdo Al-Nuur masaajid kale oo ku yaala duleedka meesha la Linwood ayaa isna la weeraray dhammaan masaajidada New Zealand ayaa imka la dalbaday in la xidho oo aanay shaqaynin waxaana ay ku jirtaa magaaladaasi iyadoo Christchurch Hagen Wade xubin sare oo ka tirsan maamulka masaajidka ayaa joogay xilligii arrinkaasi dhacay So I tried to get out and I pushed myself. waxaan isku dayay inaan dibadda u soo baxo kadibna waxaan gadaal ugu noqday gaarigayga oo yiila meesha gawaarida la dhigto waxaan ka dambeeyay gaarigayga intaa kadib waxaan maqlay rasaas iska daba dhacayso oo socotay ilaa 6 daqiiqo iyo in ka badan waxaan maqlayay qayle iyo ooyin iyo sawaxan sidoo kale waxaan arkay qof dhacay oo la dilay Screaming and crying. kooxda Bangladesh ee iyagu ciyaarta cricketka ayaa si dirqi ah kaga badbaaday weerarka ka dhacay masaajidka Al-Nuur ciyaaryahanada ayaa bas ku yimid si ay u tukadaan markii ay xabadu bilaabantay mid ka mid ah ciyaaryahanada Mushafaq Rahiim ayaa Twitterkiisa ku soo qoray oo waxa uu yiri alxamdulillah baa uu yiri Twitterkiisaasi Twitter kale ayaa noo soo baxay laakiin isagu wuxuu alxamdulillah iyadoo rasaasi ay ka soo baxday buu masaajidka Christchurch ayanu joognaa waa nasiib badanahay buu ma doonayo inaan arko waxaasi oo kale weerarka ayaa dhacay iyagoo ciyaaraya oo la laha kooxda New Zealand oo hadda iyagu joojiyay ciyaartaasi weerarka Christchurch ayaa waxa uu argagax ku riday bulshada oo dhan waxaana ka hadlay dadka masaajidka ka shaqeeya aad ayaan uga xunnahay waxba lama wadaagno ma ahayn tani in ay dalkayaga ka dhacdo dadku waa inay nabadgeliyo ku cibaadaystaan waa arrin la yaab leh oo naga caraysiisay qof waliba waa in uu xornimo ku cibaadaysto
pray, however. haddaba goor sii horeysay ayaan magaalada Melbourne ee Australia kula xidhiidhay khadka Skype-ka Ibrahim Cumar Baafo oo ah wariye madax bannaan isla markaana hore u booqday masaajidka shilku ka dhacay dadka Soomaaliyeed halkaas ku geeriyoodayna qaarkood garanayaba. bidano waxay ahayd xilli salaada jimcaha muslimiintu isku diyaariyeen masjid ku yaala bartamaha magaalada Christchurch ee dalka New Zealand waxa yimid marka nin ku hubaysan hubka darandooriga u dhaca isla markii gudaha masjidka uu soo galay sida muuqaaladaba ay lagu baahiyay baraha bulshada oo isagu qudhiisa uu duubay ee ka muuqato waxa uu bilaabay inuu dadkii xabado ula dhaco dabcan markii rasaasta ugu horeysa uu furana dad aad u fara badan ayaa markiiba ka baxsaday goobta oo qaarkood darbiyada ka boodeen sida aan la xiriiray dad Soomaaliya oo degan New Zealand 49 qof ay dhimashadu hadda gaadhay tiro intaa ka badanna waa dhaawac isbitaalada New Zealand ayay ku jiraan dadka dhintay waxa kamid ah Soomaali oo waliba qaarkood anigu aan garanayo waayo masjidkaas ayaan booqday sanadkii hore mar halkaas aan howlo shaqo aan u aaday waana meel si wanaagsan aan u aqaan dadka sidoo kale geeriyooday bidano waxa la ii sheegay inuu ku jiro wiil yar oo 4 jir ah oo Soomaaliya aabihiina uu ku dhaawacmay weerarkaas runtii guud ahaan New Zealand Soomaalida deganeed intooda badan way ka soo guureen oo dalkan Australia ayay u soo hayaameen laakiin Christchurch Soomaali kooban ayaa degan saameyn weyn bay ku leeyihiin masjidka la weeraray maamulka masjidka ayay ku jiraan waxay ka mid yihiin community-yada muslimiinta ah ee ugu fircoon jaaliyadaha halkaas ku nool masjidka haddii aan tilmaamo jaaliyadaha ku dukada waxa u badan kuwa ka yimid wadamada Asia sida Malaysia Bangladesh Singapore iyo waliba jaaliyada Soomaalida oo ku xoogan oo yana aad masjidkaasi ugu dukada amba dugsiyo quraan uga dhigta saameyn weyn bay shacabka guud ahaan reer New Zealand arintan ay ku yeelatay ra'iisul wasaaraha dalka New Zealand way hadashay waxana ay sheegtay weerarkan inuu yahay weerar argagixiso bari ay u duuli doontaa magaalada Christchurch dalkaasi New Zealand si ay u booqato masjidka iyo waliba goobihii dhibaatadu ay ka dhacday sidoo kale waxa maanta gabi ahaanba la mamnuucay ama la xiray masjidada ku yaala dalka New Zealand sidoo kale supermarketyada meelaha laga adeegta xitaa tagaasida loo yaqaan Uberka oo la ogsoon yahay inta badan in dadka wada ay yihiin muslimiin ayaa iyana la joojiyay arintana baaritaan xoog leh ayaa ku socda booliisku waxay sheegeen inay qabteen 4 qof oo ay haweenay ku jirto wulina ma aysan soo saarin war inta ka badan waxaan sugaynaa saacadaha soo aadan inkastoo xilligan waqti dambe ay noo tahay in booliisku New Zealand ay ka warami doonaan xaalad sida u dhacday bal markan aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka maanta Israa'iil ayaa 10 weerar oo cirka ah ku qaaday marinka Gaza goobaha mintidiintu joogaan iyaga oo ka jawaabayay kadib markii 2 gantaal lagu soo riday dhanka Tel Aviv ciidamada Israa'iil ayaa Hamas ku eedeeyay inay iyagu soo rideen Hamas dhankooda waa ay dafireen waxaana ay sheegeen inay arrinkaasi mas'uul ka yihiin qaar falaagay mas'uuliyiinta Nigeria ayaa bilaabay inay dumiyaan dhismayaal loogas ku yaala oo u dhawaa dhisme dugsi hoose oo ku yaalay halkaasi oo isagu dumay Arbacadii 10 qof ayaa burburka ku aasmay kadib markii dhisme 4 dabaqii dumay 20 qof ayaa dhintay oo ay ka mid yihiin arday yar oo halkaasi dugsi ka dhiganaysay mudanayaasha baarlamaanka Ingiriiska ayaa u codeeyay in dib loo dhigo hanaanka Brexit ee midowga Yurub ay kaga baxayaan waxaana cad imika inaan 29 Maarch laga baxayn sidii qorshuhu ahaa waxaa lagu dhawaaqay maalinta la qaban lahaa codeynta doorashada ugu weyn dhinaca dimuqraadiyadda adduunka oo ah qabashada doorashada guud ee dalka Hindiya in ka badan 900 milyan oo qof ayaa xaq u leh inay codkooda dhiibtaan inta u dhaxaysa Abriil iyo May haddaba doorashada lixaad kale waxa eegaya Cabdirasaaq Xaaji Maxamed Siraad ninka ugu awoodda roon India 5 sano ka hor waxa uu heray doorashadii aqlabiyadii ugu badnayd dalka muddo 30 sanadood ah Narendra Modi waxa uu haysaa dad badan oo aad u jecel oo raacsan laakiin hadda oo dadka India xiisada ay soo dhex gashay waxa uu isu muujinayaa in uu yahay ninka dalka badbaadin kara
waxaannu xadidnay saamaynta ay leeyihiin argagixisada iyo argagaxuba waxaannu doonaynaa weliba inaannu saameyntoodaasi sii yarayno tani waa hindiyada cusubina waxay rabtaa in ay tallaabo ka qaado marka loola yimaado dhibaato iyo dhaawac isagoo ka jawaabayay isqarxintii ka dhacday kashmiir bishii februari ayaa waxa uu u diray ciidamada cirka ee dalku inay duqeeyaan kaamama argagixiso ay deggan tahay dalka bakistan tallaabada adigu qaaday waxay kordhisay sumcaddii uu lahaa moodi laakiin ammaanka qaranku ma aha ta keliya ee ay ka fakiraan dadka indiya rikoodhka ra'iisul wasaaraha ee kobcinta dhaqaalaha iyo wax ka qabadka musuqmaasuqa ayaa dadku su'aal iska weydiiyaan ragga isaga hadda la tartamaya waxaa ka mid a Rahul Gandhi oo ka yimi qoyska taariikh ahaan ugu caansan Indiya hogaaminayana xisbiga ugu da'weyn oo ahaan jiray marka ugu xoogroon xisbiga Koongreeska waxaa aad loo garaaco lagaga adkaaday doorashadii 2014 shantii sano u dambeeyeen waxay isku dayeen inay soo ceshadaan sumcadoodii sanadka 2019 waxa aanu haysan doonaa dawlad ka jawaabta dhammaan dambiyadii uu Narendra Modi ka galay dadka beeraleyda ah shantii sanadood ee aynu soo dhaafnay in ka badan 1800 oo xisbi ayaa diiwaan gashan Indiya 100 milyan oo qofna way codeynayaan toddobaadada soo socda maamulka doorashada ee Indiya waxay u baahan yihiin diyaar garow ballaaran oo aan soo marin dal kale oo dimuqraadi adduunka weli waxa inoo soo socda caawa waxaanu eegaynaa daryeelka jidhka iyo qurxintiisa oo laga isticmaalayay dalka Burma weli waxaad daawanaysaan caawiya caalamka balaaran xusuusiyo qodobada caawa wararka ugu waaweyn laba masaajid oo magaalada Christchurch ee New Zealand ku yaala ayaa ugu yaraan 49 qof lagu dilay kadib markii rasaas lagu furay goob joogayaal ayaa BBC-da u xaqiijiyeen ugu yaraan 3 qof oo Soomaali ah halkaasi lagu dilay qaar ka mid ah saxaafadda dalkan UK ayaa qortay dhawaan in hooyooyinka Soomaalidu ay wiilashooda dib ugu celiyaan Soomaaliya si ay wala carraan dambiyada mindiyaha ee London haddaba wiilal badan oo Soomaali ayaa dhibaato ka haysataa inay dugsiyada ku nagaadaan oo laga soo cayriyaa iskuulada taasi oo keenta inay suuqa ku soo dhacaan isla markaana ay dambiye galaan haddaba Siciid Maxamed Sheekh Xasan oo macallinka ah macadka Brookwood Independent College oo ay Soomaalidu ku leedahay galbeedka London ayaa weydiiyay bal college-koodu waxay qabato iyo dhibaatada Soomaalida haysata hadda ardada soo ula socota wadankan wuxuu isku bedelay iskuulaadkii dawladda academy isku bedeleen marka maadaama academy isku bedeleen waxa adkaatay discipline-ka ama looga baahnaa iskuulaadka markaas arda badan baa waxa laga caydiyay academiyadii kadib markii laga caydiyay waxa jirta meel iskugu geeyay ardada soo dhacdo dhan oo Peru lagu magacaabo oo every council uu leeyahay wadankan marka meesha markii la iskugu keeno meeshaas inta badan waxba lagu barto ilmaha way ku dayacmaan ilmaha waxay waxyaalo kale ku dhex galaan marka saa darteed baan anagu aan last 3 sano u dambeysay iskuulkan aan u furnay si ay dadka Soomaalida uga faa'iideystaan sidee bay ku dambeeyaan ardayda iskuulada laga soo eriyo ee Peru-gan aad sheegto kale nidaamkaas la kulmaa meel la iskugu keeno ardada iskuulkii caadiga ahaa
qaadi weydo oo maaragtay laga soo saaray meel isku keenay way marka waad adigu dareemi kartaa ardo 5 ilmood ama 6 ilmood ama 10 ilmood oo iskuulaadka dhan laga soo caydiyay markii hal meel isku yimaadaan halka meelna macallimiin tayo leh aan la gelinin waad dareemi kartaa dhibaatada ka iman karta meesha noocaas marka inta badan ardada Soomaalida iyo ardooyinka kale dhaca ee dhacitaanka ama dhibaato keena iskuulka keena markii laga saaro meesha la tagaan taas waxay keentay ardo badan inay waxbarashada nacaan inay ka sagsaagaan ee hadhowna ama gang ama knife crime ama waxyaalo kale ay dhex galaan inta badan waxa la yiraahdaa gabdhaha waxbarta oo ku wanaagsan waxbarashada ardadan la soo yariyay dhibaatada la kulanta gabdhiyo wiilal bay isku jiraan ma wiilasha ku badan sidee way xaalkooda iyo wiilalba anagu waan leenahay waa almost isku dheelitiran yihiin gabdhiyo wiilashu labadooduna xagga waxbarashada inta badan oo maadaama ay gabdhuhu Soomaalida jaamacadaha uga badan yihiin laakiin wiilashuba hadda dadaalkooda ma yara waxaan sameeynaa 3 sano hadda furanahay sanadkii koowaad iyo sanadkii labaad 85% ardadanadii waxay ku baaseen 5 GCSE bay ku baaseen oo A level bay u gudbeen kuwa A level ka dhigan jireen jaamacada wadankan Ingiriiska jaamacadaha ugu fiican bay galeen taas waxa way dadaal badan baan gelinaa ilmaha 5 6 7 maanta dhan macalinka tuition waxa dhan baan ku wadnaa saa darteed baan I think xagga waxbarasho ahaan iyo xagga ilmihii niyad dhisan ahaan intaba waan ka dhisnaa waalidiinta Soomaalidu nidaamkan waxbarashada ee dalkan Ingiriiska ma fahamsan yihiin oo ma la socdaan isbedeladan iyo magacyadan iskuulada iyo nidaamyadan iyo imtixaanada waalid badan ba maalin kasta noo yimaada oo arrin dhibaatooyin haystaan caqabadaha iskuulaad kala soo darso dhan aan ka caawinaa sida darteed waalidka Soomaalida qaar badan oo fahamsan way jiraan waxbarashada wadankan iyo sida uu socoto qaar badan oo fahamsanin baa jira oo baruuga iyo iskuulka caadi waxay ku kala duwan yihiin aan u haysan aan aqoonin ilmahoodina meesha ku dayacmayo waayahay caawana waxaynu eegaynaa bal nidaam isqurxinta ah oo kumanaan sanadood dadka reer Myanmar ay isticmaalayeen oo jidhkooda ama maqaarkooda ay ku qurxiyaan geedka taanka laakiin qaabkan dabiiciga ah ee qarniyada la soo isticmaali jiray wuxuu isbedelayay dadka uu u furmay caalamka imkana laga helayo waxyaabaha casriga ah ee gabdhuhu ay isku qurxiyaan bal nala daawo Myanmar markaan marsado shumburahan waxaan dareemaa kalsooni waxaan rabaa inaan sida hooyaday u qurux badnaado kani waa shumburaha qarsoon ee quruxda Myanmar magacayga waa Mosandra Minti kani waa dhaqankeena Burma waxaan isticmaalnaa xididada iyo jirida geedka subax kasta waxa ugu horeeya ee aan sameeyno marka aan wajiga dhaqanno ayaa ah in aan marsano shumburahan waxaan soo qaadanaa geedka dhagax ayaan ku xoqnaa biyo yar ayaan ku qoynaa waxaan xoqnaa geedka ilaa inta aan ka helayno budo kadib waxaan marinaa wajiga wuxuu ka ilaalinayaa qoraxda oo wajiga kuma gubanayo waxa uu wanaagsan yahay dumarka Burma sida aniga oo kale iyo midabkeenaba xitaa haddaan marsano make up waan ka dul marsan karnaa Myanmar oo si ilbaxaysa ayaa dhaqankii hore iyo kan hadda isku wada waxaan marsanahay make up indhakuul roseto iyo shumburo make up lane နဲ့ပြီးလို့ရှိရင်တနခါကိုကျွန်တော်တို့ပုတ်တယ် foundation lane waxaan marsaday make up butter iyo shumburo in tana ka lane gabdhaha inta badan waa ay marsadaan gaar ahaan kuwa tuulooyinka marka ay timaado isticmaalida make upka ma awoodno inaan gadanno mid tayo leh sidaa darteed waxaan iska isticmaalnaa kuwa raqiiska ah oo tayadooda hooseyso waxa dhici karta in aad ku xasaasiyooto laakiin si kasta oo aad u marsato shumburahan wax dhibaato ah kuma geysanayo isaga hooyaday way ii marin jirtay markaan yaraa gabadhayda iyo wiilkaygana way marsadaan hadda kani waa dhaqankeena waana sababta aan u qadarino keebaad jeceshahay inaad marsato shumburaha ama make upka shumburaha waxaan rabaa sida hooyaday in aan u qurux badnaado marka ay marsato
bal imkana caawiyo ciyaaraha aynu eegno haddaynu eegno saaka waxaa la soo saaray isku aadka kooxaha 8 quart finalka isugu soo hadhay ee horyaalka Yurub qorituurkiina sidan ayuu u dhacay haddii aynu eegno laba kooxood oo horyaalka Ingiriiska ayaa isku soo beegmay Manchester City iyo Tottenham halka Manchester United ay la kulmayaan ragga waaweyn Barcelona Liverpool iyo Porto ayaa iyana fooda istari doona halka rugcadaadiga iyo Juventusna ay la ciyaari doonaan dhalinyarada Ajax ciyaarta halista ahi waa Man United iyo Barcelona oo ka dhacaysa Old Trafford xagga Europa League-na kadib markii ay cagta mariyeen Dynamo Kiev 5-0 ayay Chelsea ku soo badisay isku celceliskiina waxa ku badiyeen 8-0 waxa uu tahay Chelsea record-koodii ugu cusbaa marka laga tago 1971 iyo 1970 guushii ay gaadheen koobka Europa League Arsenal ayaan iyaguna dab yar shidaynin kadib markii ay 3-0 ku garaaceen Rennes oo Faransiiska ah isku celcelisna way u noqotay inay 4-3 ku badiyaan imikana haddii aynu eegno wararka kale waxaynu eegaynaa barnaamijkeena tenista haddaynu eegno waxaynu arkaynaa in ciyaaraha tenista laftigoodana iyagana la ciyaaray oo meelo badan oo caalamka ay wada ciyaareen Angela Kerber iyo Venus Williams oo aad arkayso inay Indian Wells meesha la yiraahdo 31 jirkan Jarmalka ayaa iyadu waxa ay guuleysatay inay ka guuleysato semi-finalkaasi oo socday 90 mirar ragga haddaynu eegnana Gali Monfils oo Faransiiska ayaa waxa uu ku guuleystay inuu isoo quart finalkii ka badiyo Dominic Thiem markii uu halkaasi waxoogaa uu rukunka uu ka dhaawacmaan iraade Austriana waxa imika uu la ciyaari doonaa Milos Raonic oo isagu waxay dhacaysaa Saturday-da ama Sabtida ee semi-finalkooda mar walba waxaad nagala socon kartaan BBC Somali Facebook fadlan raadi BBC News Somali halkaasi oo aad ka heli doonto muuqaallo falanqeyn dheeraad ah iyo wararka ugu waaweyn si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka nagala soco BBC Somali Twitter iyo Instagram barnaamijka tiknoolajiyada ee maantana waxaanu ku eegaynaa arrimaha cuntada iyo iyadoo ay isla soo qaadeen tiknoolajiyadii waa kan Cabdixaafid waxaa laga yaabaa in muuqaalkan uu iga waxaad la yaabto laakiin xaqiiqdii waa robot qaadi kara aaladaha sida aan qaabka toosan u samaysnayn amaba alaabada jabi karta qalabkani waxa uu ka habboon yahay mashiinada loogu talagalay in lagaga shaqeeyo waxyaabaha ay ka mid yihiin beedka ama ukuntu qalabkan oo ay samaysay shirkadda MIT waxa uu qaadi karaa shay isaga 100 jeer ka culus waran cuntadansi qalabkan cuntada sawiraya heer kale ayuu gaarsiiyay sida dibadda wax looga cuno waa cunto aad caalamka oo dhan ka dalban karto adiga oo qaab casri ah ula soo degaya alaabadan yaryar ee ku muuqata waxa laga sameeyay dareere waxaanad ku dari kartaa waxyaabo midabo kala duwan iyo dhadhan kala duwan laakiin inaad dhadhanka qiyaastaa ma sahlana iminka marka waqti dheer ayaa u haray in si fiican loo cuno balanbaalistan oo eeg diyaaradaha yaryar aan lahayn duuliyaha aad ayaa looga helay saacaddii waxay jari kartaa xawaaradan 18 kilomitir waxaanay duuli kartaa 8 daqiiqo marka baytarigeeda loo buuxiyo 12 daqiiqo iyada oo si fudud oo degdeg ahna loo looxin karo xataa guriga dhexdiisa ayaa lagu duulin karaa toddobaadkana waxaanu idin haynaa cod aan gabadh iyo nin toona ahayn dad ku takhasusay afafka lagu hadlo tiknoolajiyada iyo dadka codadka sameeya ayaa sameeya Q sida Siri amaba Alexia laakiin nin iyo gabadh toona codkoodu ma noqonayo xusuusno wararka ugu dambeeyay BBC Somali waxaad ka heli kartaan bbc.com/somali caawina warka weyn wuxuu ahaa laba masaajid oo ku yaala Christchurch ee dalka New Zealand ayaa ugu yaraan 49 qof lagu dilay kadib markii rasaas lagu furay goobjoogayaasha ayaa BBC-da u xaqiijiyay in ugu yaraan 3 qof oo Soomaali ah halkaasi lagu dilay wararka ugu dambeeyay weerarka New Zealand kala soco BBC Somali barnaamijkeega caawa iyo caalamka intaas ayaan caawa ku soo gabagabeynana inta eebe idmaya intaanu kulmi doono maalinta Isniinta ah dhamaantay bahada Somali Television waxaanu idin leenahay waa mahadsantiin daawashadiina sidaas iyo nabadgelyo iyo habeen wanaagsan